tababar ay soo qaban qaabisay hay'adda Isuroon ayaa lagu qabtay magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota. Tababarkani ayaa waxaa bixinayay qaar ka mid ah shaqaalaha Isuroon wuxuuna ku saabsanaa sida lagu hortagi karo cudurka aamusan ee loo yaqaan kansarka. gaar ahaan waxaa lagu faahfaahiyay kansarka ilmagaleenka ku dhaca iyo kansarka naasaha ku dhaca. tababarkani ayaa waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota. markii uu dhamaaday tababarkani ayaa waxaa la sheekaystay qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay waxayna sheegeen in ay ku baraarugeen waxyaabo aysan marnaba filanaynin, taasi oo wax weyn ka bedeshay wacyiga ay ka qabaan cudurka kansarka. waxayna codsadeen in la sii joogteeyo barnaamijyada noocaani oo kala ah si loogu faa'iideeyo hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo dhibano u ah cudurkani balse la aamusan. qaarkood dadkii ka qaybgalay ayaa ballan qaaday in ay isbaarayaan isla markaana ay la soconayaan caafimaadkooda si ka duwan sidii hore. sidoo kale tababarkani la mid ah ayaa hay'adda Isuroon ay ku qabatay magaalooyin kale sida magaalada Minneapolis, St. Paul iyo weliba Singalood. waana qorshe ballaaran oo la doonayo in lagu gaarsiiyo guud ahaan haweenka Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan, waana taasi hadafka ugu weyn oo ay leedahay hay'adda Isuroon.